Bismillahirrahmanirrahiim. Waa Somali News oo runtii ah channel aan idinku soo gudbino xogaha iyo warbixinada. Maanta waxaan idiin soo gudbin doonaa 10 wadan ee ugu soonka dheer ama bisha barakeysan ee Ramadaan soomo saacada ugu badan. Hore waxaan soo gudbinay 10 wadan ee ugu dadka badan. Channelka haddii aad ku cusub tahay subscribe saar walaal. 10 wadan ee ugu dheer dhanka saacada markii la soomay. Number 1 waxaa galay Iceland. Dalka Iceland waxaa xiriir ee u soomaan muslimiinta joogto 21 saac iyo 3 daqiiqo. Dalka 9aad waa dalka Ruushka ama dalka labaad. Ruushka 20 saac iyo 23 daqiiqo ayuu xiriir ayay soonaadaan dadka jooga. Dalka 3aad waa Germany 20 saac iyo 11 daqiiqo. Dalka 4aad waa Norway 20 saac iyo 7 daqiiqo. Dalka 5aad waa Switzerland ama Sweden 20 saac iyo 3 daqiiqo. Dalka 6aad waa Canada 19 saac iyo 15 daqiiqo. Dalka 7aad waa Britain 18 saac 44 daqiiqo. Dalka 8aad waa Belgium 18 saac 31 daqiiqo. Dalka 9aad waa France 8 saac iyo 5 daqiiqo. Dalka 10aad ee ugu dambeeyana waa Mareykanka 16 saac iyo 22 daqiiqo. Inta badan wadamadan waxaa ku nool Soomaali qurbo joog ah iyo muslimiin kale oo fara badan. Waxaana bisha Shacbaan soo gaaray gudaha dalka Soomaaliya dad badan kuwaas oo ka soo tagay wadamadaas. Inta badan dadka waxa ay si toos u yimaadaan wadamada saacada yar la soomayo markii la gaaro bisha barakeysan ee Ramadaan. Intaas ayaynu ku soo gabagabayn doonaa xogtii aadka u gaabneed hase yeeshee faa'iidada badan lahayd ayaan uga hadlaynay 10 wadan ee ugu saacad soonka badan dhanka bisha barakeysan ee Ramadaan. Haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe inoo saar insha Allah.